wad salaamantihiin guud ahaan meel kasta oo caalamka ka joogtiin. waxaan maanta idin wadaa sheekada filimka The Platform. filimkan oo dhammaystiranna waxaad ka daawan karaysaa Netflix. inaad subscribe nasiisidna waa dhankaaga. filimka Platform wuxuu ku bilaamayaa madbax ama kitchen mashquul ah, cuntadana si taxadir ah loo sameynayo. odayga suudka cad xiran ayaana kormeeraya cuntada ahna maamulka u sarreeya. halka cuntada lagu diyaarinayaa waa platformka ama qolka zero. cunto siintuna waxay ka bilaamaysaa qolka number 1 waxayna sii soconaysaa hoos iyadoo ay tahay dabaq dheer oo qolboqol uu ka sarreeyo. Joren oo ah jilaaga filimka ayaa wuxuu ka soo dhex toosayaa qolka 48 waxaanu arkayaa oday weyn oo ah oo kala xiran qolka, magaciisana leeyahay Trimigasa Goreng. waxa uu soo taagay gacanta isagoo raba inuu barasho bilaabo, balse odaygu waxa uu sheegayaa inuu ku laabto meeshiisa. odaygu weyn ayaanu sheegay inay ku xidhan yihiin qolka 48aad ee dabaqa ama sarta. waxaana uu sharaxay nidaamka meesha in 47 qol ay ka sarreeyaan, cuntada ay soo reebaanna keli ah ay cuni karaan, halka iyaguna kuwa ka hooseeya ay ka sii cunayaan. maadaama ay ahayd Joren markiisii ugu horreysay, cuntada waa iska dhaafay isagoo diidan inuu hadhaa dad kale amba hambo dad kale uu cuno. waxaana uu qaatay keliya xabad tufaaxa. Trimigasi wuxuu si degdeg ah u cabbay dhaladii khamriga ahayd, quraaradiina waa ka hoos tuuray isagoo candhuufay cuntadii kalena. qolka waxaa bilaabmay in heerkulku saa'id noqdo. Trimigasi ayaana u sheegay in kuleelku sababayo xabadda tufaaxa uu jeebadda gashaday oo aan la oggolayn in cunto lala hadho. Joren teelka waxa uu soo galay inuu iska dhaafo cabista sigaarka oo balwad xun ka noqotay iyo inuu jaanis u helo akhrinta buugga Don Quixote. Trimigasi ayaana u sheegay sababta uu jeelka u soo galay inay tahay inuu dilay qof si aan kama ahayn. maxkamadduna siisay 2 option in lagu xidho Nut House ama The Hole. markaa wuxuu doortay Trimigasi in lagu xidho The Hole oo godkan ah. Joren wuxuu weydiiyey odayga, godkan amba wiishkan hoos u socdaa inteen leeg ayuu gaadhsiisan yahay? in qolka 132aad marka ku xidhnaa uu arkayey dabaqyo ka hooseeya balse ay yaraayeen. odaygu waxaa la soo baxay tooridii uu meesha la yimid, halkuu Gorenna ahaa mid buug la yimid. waxaan la gaadhay wakhtigii cuntada wayna qadeeyeen. qof kasta waxaa loo ogol yahay hal shay inuu la yimaado, xitaa dadka qaar ayaa wata seefo. Trimigasi wuxuu ahaa mid maalmaha ku tirsada gidaarka. iyaga oo hadlaya ayaa qof halka sare oo ka soo dhacay, waxaana u xaqiiqsaday Goren inaan naxariis aanay oolin. godka waa urgagaxay, waxaana uu ahaa mid dhiigu wejiga kaga soo daatay. waxaana soo daadegay wiishkii cuntada oo ay gabadhi dusha ka saaran tahay. waa Meheru gabadhaniye. Joren ayaa bilaabay inuu waraysto Meheru, balse odayga ayaa u sheegay in Meheru ay bishii hore dishay qofkii ay ku wada xidhnaayeen qolka, marmarna ay wiishka soo raacdo sidan iyadoo diidaysa inanteeda ama gabadheeda oo iyana ku xidhan godkan balse ay kala lumeen. Trimigasi oo sheekada sii wata ayaa waxa uu sheegay inay isaga iyo ninkii ay ku wada xidhnaayeen qolka 132 ay cuneen meyd dusha kaga soo dhacay. waxay maqleen qaylada Meheru oo ay jiiteen labada qof ee ku xidhan qolka ka hooseeya ee 49. dhowr sekend kadib waxay maqleen qaylada labadii nin. Meheru dib ayay ugu soo noqotay wiishka wayna la dhaadhacday. waxaana uu weydiiyey ninkii mee kugula jiray. waxa uu sheegay in ninkii la fasaxay sababtoo ah waxa uu helay xujo ama accelerationka lagaga baxo godka. bishii labaad maxbuus Joren waxa uu soo toosay isagoo ka xidhan lugaha gacmaha. Trimigasina tooridiisu ay diyaar u tahay, una sheegay inay ku xidhan yihiin qolka 171 cuntaduna ayna marnaba soo gaadhayn. si ay u badbaadaanna waa in midkood la cuno. fursaddana aniga ayaa kaa hor helay ayuu ku idhi. odaygu ayaanu bilaabay inuu ka jarto cajarka ama boodyada. sidaad u jartay waxaa badbaadisay Meheru oo la socotay wiishkii cuntada. Joren wuxuu noqday mid ka takhalusa Trimigasi cunana hilibkiisa. Meheru waxay hoos u raacday wiishkii. Joren wuxuu ahaa mid cuna wakhtiga odayga si uu badbaado inta bisha ka dhiman. bishii 6aad Joren wuxuu arkay weji uu aqoonsaday oo qol kale kala soo toostay. Inagori iyo eygeeda Rameses waxa ay ahayd
sarkaaladii waraysatay intaanu jeelka soo gelin, waxayna ku wada jiraan qolka 3 ee dabaqa. Inaguri waxay u sheegtay in cuntada ku wada filan tahay, laakiin dadku ay dhaqmayaan si daryeel la'aan ah. waana midda haysataa dadka nolosha caadiga aynu ku noolnahay. dabaqada sare waxay madaxa kaga taagan tahay dabaqada dhexe, dabaqada dhexena wax madaxa kaga taagan tahay dabaqada hoose oo aan lahayn meel ku ciiraan. Inaguri waxay bilowday in 2 saxan ay ku kala rido cuntadeedii iyo taaygeeda, waxayna u sheegtay labada ka hooseeya in iyaguna 2 saxan oo kali ah kaga ritaan, inta ka sii hadhana ay sii daayaan dadka ka dambeeya. markii Miharu oo suuxsani ay wiishka la soo daadegtay, waxaa dhanka sariirtiisa soo qaaday Goreng. markay soo caafimaadday Miharu waxay dishay eygii Rameses. markii labaad ee wiishku soo marana way raacday. Inaguri waxay u sheegtay in xanuunka kansalka ay qabto, dabaqyadana ay ka kooban yihiin 200 oo dabaq. maamulka meeshuna ayna ogoleen in caruur lagu soo xidho halkan. habeennimadii markay seexdeen waxa u bilaamatay bishii afraad. Goreng waxaa ka soo toosay qolka 202, waxaana uu arkay in Inaguri isdaldeshay. iyada ayaa isku hadiidaysayna imika waxaa ku khasban yahay inuu cuno Tremegizki, iyo Inaguri ayaa isku sawraya oo ku leh cun si kasta uu ku badbaadi karo waa inuu sameeyo. ayuu xitaa buuggii uu watay ayaa uu cunay. bishii 5aad waxa uu ka soo toosay qolka 6 nasiib wacana haye oo uu kula xidhnaa Baharat wuxuu doonayaa inuu kor fuulo si uu u baxsado dabaqa halkiisa sare, balse Goreng ayaa ku qanciyey in hoos u degaan. labadooduba si wada jir ah ay wiishka u soo fuuleen, waxayna cuntada ilaaliyeen ilaa dabaqa 50. waxay kula kulmeen oday aqli badan oo u sheegay inay keega ama doolshaha ayna taaban. waxay hoos socdaanba waxay arkeen Miharu oo tuuri lala dhacayo. caawiya ayay isidhaahdeen, balse waa mar ayna waxba ka qaban kareen oo ay dhimatay. Goreng laftiisa waxa uu dhimi gaadhay cunaha oo aad loo hayay, balse waxa badbaadiyey Baharat oo qoorta ka jaray. hoos ayay sii socdeen, waxayna arkeen dad u nool sida xayawaanka duurjoogta oo kale. ugu dambayn iyagoo dhaawaca markay soo gaadheen qolka 333 wiishka gebigiisu waa istaagay. waxayna arkeen inantii yareed ee Miharu daydaysay. dhankeeda ayay soo dhaqaaqeen iyagoo gacanta ku wata keegii. gabadha yari waxay u ishaartay inay keega doonayso inay cunto, waana ay siiyeen. daal badan iyo dhaawac badan jidhkooda ka muuqday. habeennimadii sidii ayay ku seexdeen. maalintii dambe marka ay soo tooseen waxa uu arkay Baharat oo dhiigbax u dhintay. Goreng waxa wiishka soo saaray tii yareed, waxaana wiishku u soo daadegay sagxadda hoose oo aad u weyn, ifinayaana ilayskii qolalka sare. ugu dambayn dhulka ayuu soo taabtay, waxaana la sheekaysanayay Tremegazki oo isku soo reeyay. waana soo dhoweeyey isaga oo wada nabar iyo dhaawac meedhan ah. waxaana uu sheegay in xujada xorriyadda lagu helay ay ahayd qofkii keenaa inanta yar.